nin بريهان كسوع العليي أوليو وشباب أوليو وكير أوليو وكاس أولي هذا حلدبان أحمد فقي أيام واحد ربعنا هل كان فرصة أنا نقول جوابه أنت أنا وحكي له أجلين حلدبان أحمد فقي وحلني هاي وادي ربي جاي الرصاص كبريه كوجور أنت يروم مكود أي وحنش على هاي برنامج شو مسلسل هو is حلدبان أحمد فقي إن شاء الله برنامج تحنا إن كسم يحو قال كيجا أنت إن بورجرام تحنا أو حوي هي حلدبان فقي إن كسي دايم حوز ضلك أودي بي حندون يا إن شعب كسومالي دوش يجو حلدبان أحمد فقي هرت سيدي ده واحد لير إن حنلي مرق متجو ومركي لبعض ويقول يجو إن شباب هاي waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay maanta ila wadaagaan markii ugu horeysay 2012kii markii aan dalkan ku soo noqday asaguna oo agaasimaha ahaa markaan ka soo degay aadan cad airport boorsadayda 8 casho ayuu la haray wuu jeexay waa jeclaan lahaa in aad maaragtay ku dhax qabatiin si aan shacabka Soomaaliyeed u tuso waxaan uga keenay London maadaama aan nin qoraa ahay in aan maalmaha kamida waxaan la sugaya maantoo kale in ay fursadeedu imaanayso waxa laga yaabaa qofka caadiga iyo qofka qoraaga ah inuu san maaragto isku mid ahayn oo qofka qoraaga ah waxa uu historical uu iska dhigto wax 10 sano 20 sano asagoo rajeynaya maalmaha kamida inay qiimo yeelato inta aan madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uusan ii magacaabin safiirnimada Ateeno ayuu ayaan waxaan soo degay halkan 2012kii ayaa waxaanu ka soo degay aadan cadda airport boorsadeydii ayuu la haray 8 casho ayuu haystay photo masawiro oo baasaboorka kuwa ah ayuu ka bixiyay wuxuu ii sameeyay baasaboor Afghanistan ah baasaboorkii Afghanistan ka ahaa ayuu waxa weeye wuxuu u gudbiyay Nairobi waliba European Unionka sidaad ula socotiin European Unionku xilalka way qoonteystaan midowga Europe saddexdii bilood ba nabad sugidooda ama ciidanka ama dadka la yiraahdo intelligence-ga waxa ay saddexdii bilood ba dawlad baa haysa waqtiga waxa ay Talyaaniga nin la yiraahdo Giuliano oo aan markaas aad isku naqaanay oo waad la socotiin 2008 waxa bilowday dagaalkii ahlu sunna wal jamaa iyo shabaabka xiriir badan baan anigu markaa iyaga la lahayo waxa jiray dhalinyaro badan oo Yurubta ka timid oo America ka timid oo gobolada dhexe aan markaas waxa weeye aan shaqays weydaarsi ahlu sunna wal jamaa inta qabato qofkii ilaa hadaad qabato lama dilaye lama in la dilo diintu ma ogole dib loo celinayay ayaa jirtay Giuliano wuxuu ku jiray dad badan oo maaragtay wiilal Sweden ka yimid kuwa Norway ka yimid kuwa America ka yimid oo waqtigiisii aan celiyay oo asaga u dhiibnay baa jiray baasaboorkii ayuu helay oo Afghanistan oo aniga masawirkay ku yaalo Axmed Fiqi uu sameeyay oo waxa weeye intuu masawiradeedii boorsada jeexay ayuu baasaboor Afghanistan ayuu ii sameeyay oo fake ah oo bug ah Giuliano markuu arrintii arkay wuxuu u tagay ciidanka nabad sugidda hadda nin ku jira oo waliba Cornel inuu yahay aan jeclo Abbas la yiraahdo oo UN Ombos Somali Political Office waqtiga la shaqeynayay nin la yiraahdo ku xigeenka Mahiga Ingrid ninka la yiraahdo ka hooseeyay Abbas ayaa loo geeyay oo hadda habar qadiijo jooga waliba qaybta dibadaha ayuu ka tirsan yahay Abbas ma taqaanaa baa la yiri baas ninkan Giuliano marka aniga waa yaqaanaa laakiin wuxuu rabaa sidii iigu soo gudbin lahaa meeshii ugu dambeysay macluumaad حسن فرماجو أو مركز نيروبي كسقنابه وكان صاحبكي حسن فرماجو محمد عبد الله فرماجو ولا الكيس ونيروبي كسقنابه لو كاني waxay u keeneen saaxiibkay oo marka silii joogay waxa la yiri ninkii awliyaha waa la raadinayaa baasaboorkan Afghanistan ka lagu haray European Union ka keeneen ayagoo qayla dhaanahay soo wacin waxa la yiri beelonin intii dheer ba maro qabsada Giuliano nasiib wanaag dawataan ku sheego oo xiriir wada shaqeyneed oo dhinaca ku saabsanaa ahlu sunna wal jamaa iyo European Union ka qofkii ku yimaada baa naga dhixi
باسبور تليفون كيسان أي تليفون كي ما وعي إسكدا يعني اللي مركي اللي يسوي رجليي جوليانا ولا شيء وانو شيء وحلا سو إنفورم قرية مركز أول يري جوليانا إريدو أديك تدي وحكم ذا محمد حسين أبو بكر أوليو أو الشباب وحول الميديا براك أوباما والشباب هالي مرة نعيسو إن وحوي كمان يلنا وحي كل عن هذا كمسؤولة وحين نقطة فقي مرة هديل أجادي إنه إسقابيو ومركز إسقابيون أجادي إنه باسبور فيك يسميه بورصديو شيء حنبو يسوع عليه وحي يردم بين نقطتي وحي واكشف من إلا يمدحتو يدي سيجارين أنا قلنا مركز ده وحوي واحد يبغى يجهزي ما تشيرنا وحوي هذا واحد نوجه لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كل نفس ذائقة الموت إلى مركز وحن ربا برنامج يدا تحناها كسب سن فقي يوم أنت أو يري أوليه والشباب وريبنا الدولة ده وكو إيدي waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego meediyu ka yiri Facebook ku soo qoray ilma yar buu inta adeejiyay ayuu yiri waxa weeye ay waxay soo qaateen waxa weeye diinto meel ka dhacay uga dhacayo war anagu waxaanu rabnaa tikniiga 1975 dagaalkii 77 ka hor maxamed siyaad bare Allah u naxariistay asagoo yani isqaldaya isqarinaya ayaa jigjiga lagu arkay madaxweynuna aha maxaa dhacay yiri waqtigan meesha aad marayso hadii maanta lagu qabto lagu dilo madaxweynihii Soomaaliya ayaa tahay soo magac xumo maaha maxaan awalba ku noolaa buu yiri hadii waxa weeye la dilo xataa maxayaan ku noolaa inta jigjiga iyo ay waxa weeye ay maqan yihiin dhulkii Soomaaliyeed intuu maqan yahay maxamed faarax aydiid markuu dagaalka furinta hore gelayo oo rangerskii la dirirayay waxa weeye ma ahayn inuu isagoo oo sidiisa u labisan u tagay حاشا دجالك waxay weeye cadawgaagu wuxuu kula dhaqma ayaa lagu la dhaqma waxaan ku faraxsanahay inaan anigu wadankayga aan ogaado ana waxa weeye bi'ay dariiq aan BL-ka iyo bajaajka aan ku raaci karo iyo bishkileetiga inaan ku raaco waana ku raacaya waana ugu tagayaa meel kasta waxaan rabaa marka inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed iyo supporterkayga waxaan Facebook iyo social media ka arkay in badan iyagoo la daahir cali soo baa dadku soo diray awliyo daahir cali soo cidna iguma soo dirin عندنا وحوي وحولاد هنا نمد حيسو بله وحنا قد حيسو حشمه وحوي نينكا أنيجا أن يقصو دري أو وحال عقد كوقيبي أو أن بورجرام يقدر أن ربه إذا عدها إليهن حزب الدبشر هنتيدا أي كليهن ذلك waxa ay baalki ka sameeyaan ragga lacagaha ay siiyaan oo hoteelada 10 qof hotel walba 10 qof jooga halka dakhligu uu ka galo niilka aan hadda aan ogahay oo United Imaaraat Arab ay la galeen oo dhahan Turkiga waa ka soo go'aynaaye Imaaraati wixii uu Turkigu nasiin jiray nasiya waxa soo dhan boorgaraamyo dambaan uga hadlaynaa waxaan rabaa inaan shacabkayga iyo supporterkayga u sheego ma aha daahir cali sow waa fiqi iyo saaxiibadiis waa dibjir iyo waxa weeye dib u socod labada xisbi oo aan leeyahay dibjiriyo maxay dib u socod rabaan dibjiriyo maxay dib u socod rabaan waxaan jeclaan lahaa ateeno inaan ku soo qatimo ilaa annagoo danley ah adinkuna dan baan leedihiin as news Somali news aniguna dan baan leeyahay waxaan rabaa inaan tixdaan kuwa xilka waayay aan ku soo gabagabeeyo oo aan uga baxo arinta inta aanan uga dhigan waxaan jeclaan lahaa inay waaximina aan israaciyo waxaan leeyahay fiqiga ragga la midka maxaan xili waayay raggi u xanaaqay xuduudda u gooyay iyagoon waxba xeerin shisheeye xan siiyay xabaasha horteeda xayada noloshooda xaashee ila fiirsha xagee u dambeysay xisbiyaan xeerka dhowrin dawladda wax aqsoonin xumaha la dhawaaqa xukuumadda joogta xujiya dib u raadsha kursiga ku xamaaro xisaabta ku kooba xaashee dib u fiirsha xagee u dambeysay xifaaltan siyaasad wasoo gaabina xifaaltan siyaasad xubeera kulays xifaaltan siyaasad xubeera kulayska qaxooti xambaarka xorooyinka buuxshe xigtii ehelkiisa rasaas ku xasuuqe xaashee dib u fiirsha xagee